السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي طارق waxaa ku fikiriyay inaan sameeyo Obamajani qof hore u sameeyay ma lahan marka waxaa rabaa the first forex trader oo Soomaali oo journalkiis caadi YouTube ku dhex jiro. It's not about just trading, like the way routinekeega sida trade u qaadanayo, sida trade ku manage garanayo, profitkeega, loskeega, everything oo soo dhigi doonaa wax oo la qarinayo ama wax oo everything facts soo dhiga insha Allah. Marka insha Allah hope you guys na ila socotiin. maanta dhaxad waaye already business oo daily so beri maanta dhaxad waa beri lisnin waaye so beri ay bilaabeena anna so basically the way aan u tirkiri waxa waaye maalinta like lisi amal suuqa maanta dhaxad waaye maanta dhaxad suuq ma diyaarsadani maanta trade galaal trade diyaarsada because the way aan u tirkiri waxa price action adag maanta suuq fiiri aad ma beri sasa karaba so suuq waa taga beri insha Allah ay socodintiin every single thing the way everything trade like patient wax walba insha Allah guys. So basically guys meesha waxa waaye Discord keena waaye so teamkeena waxa waaye Molly Traders oo like teamka uu madaxda ka waxa waaye ani iyo Xasan Mukhtar. Every Fridays, every Saturday, most of times Discord kana wada xiriirnaa meesha aan soo dhignaa trade ideas soo dhignaa trade take soo dhignaa waxay trade qaadano above resistance ku xirmay and then what happened, it drove okay support was messy as you can see from here. Support was messy, internet was messy, resistance adilo soo kacay adi waxa soo kacay sodon kor saacad waxa la maruyaa 2 saac subaxnimo inta waxaan qoran London shan furmi so marka quraac diyaasana college-ka aada xaluudeeda socodsiidana korta trade galaayo insha Allah marka tawjiitiin waxa furmin London session so London session aragtay trade maanta galaayo because college aada rabaa marka trade galaayo waxa markay dhacayso in socodsiidana insha Allah. Peace out guys. asxaabta meeshaan waxa ka dhex aragtiin in maanta news na soo bixin oo USD ku saabsan so marka waxa trade gareena gold geometry Greek because maanta bank holiday waaye so marka waa arki doonaa trade maanta helna opportunity waxaas insha Allah. so marka jimcada wuxuu ku xirmay suuqa bullish qurux badan maanta wuxuu ku hormar hoos wuu ku hormari so I need to go to 4 hours waxa ka dhiman like 45 minutes ka dhiman meeshaan wuxuu sameeyay resistance meeshaan wuxuu sameeyay support so gold ala fiiriyo dhinacaan uu jira ranger uu jira indian uu jira inta ka bilaato inta so ranger uu jira so we might look for korkan ku xirmo we can look for buy to drop up samar we look for after this samar asana raadin inaan dhaco the reason tartiib uu hadlo waxa meesha uu jira meel oo labor oo buuqto loo aqsado guri ma joogi so that's why tartiib uu hadlooya so waxa same thing dhacdo oo kor ku xirmo drop up that's my plan marka suuq maanta effect newsman effect gareenayo because news soo bixirawo so marka suuqa maanta dhaqaaq doonaa mise markana ada opportunity heli insha Allah soo sii doonaa. That's what we're looking for guys. Closer above I'm looking for buy drop up because into arkusa clean traffic to upside. Yeah. So that was sell so because sell so every time it came to this level it dropped down. It came down so I might have sell stop for logisa iyala sell stop kega and 31 so let's see because it sells so into I stop is gonna had in previous high and so yeah marka that's the trade guys. Break even ke waxa dhigan aan inta ku level kan PE into it level kan way am I close full am I close half let's see because PE into it level kan PE look what happened every time it came to the level it dropped down, it came down close below, it dropped down the level kan waxa strong support wise so every time so that's why I'm going to break even going tomorrow. It's ready for guys. I'm in sell right now and SRK waxa dhiganaa previous higher SRK waxa dhiganaa
37. How many hours is a part-time 37. position normally? Is it 3 days a week? 37 dhigtay asalkeyga PE na waxaa dhiganaa ani around 28 the profit kan waxaa dhiganaa like level sport level kan. So let's see how it goes markaas. Trade-ka waxaa ku jira minus $63. So let's see markaas. Okay, for 5 minutes waxaa ka dhiman 11 minutes. Miko daqiiqa ka dhiman. And waxaa ku jira minus 20 pip. So let's see SRK ma ku dhic doonaa. Waa lagu socdaa. SRK waxaa ka dhiman like GP waxmar. The only reason trade-ka unkala waxay ahayd every time you close below maxaa dhacday? It drop down. Okay, before it drop down maxaa dhacday? Every time week uu soo qaadanayo it drop down. That's why this trade sell stop intuu dhigtay to drop down. And then week hadduu buuxiyo I'm gonna close full. I'm do break even حتى. So let's see. Because if one hour hadduu rabo inuu kor aado inuu waxsan sameeyo waa. Waxsan uu sameeyo waa. Intuu ku furmo inuu waxsan sameeyo waa. Gaamiyo saan. Because faa'iidadeen intaan waali. So let's see how it goes marka. Like the good thing is wuxuu ka hormar week kor ku hormaray. Hoos ma aadin. Then 1 hour ka hor ku xirmay bearish. I'll jeedin bearish ku xirmay. So if you're gonna drive or not. And waxaa ku jira minus 52 pound. I'll jeedin marka. Let's see how it goes. For 5 minutes waxaa ka dhiman 1 minute. So bearish ku xirmo. That's the only issue. But inta kale 10 over 10. So let's see markaas. Let's see 30 minutes ku xirmo waxaa ka dhiman 1 minute hasta. The only reason aku nooci waxa waaye bullish ku xirmo waan. Laakiin hal shay ku badal karnaa because this trade is based off 3 time frame. Hawaii 30 minutes, 15 minutes, 1 hour, iyo 4 hour. Because 4 hours the week so yellow way. No, 15 minutes the week so because 15 minutes so ku xirma ujeedin. 15 minutes so ku xirma Hawaii khadka ay dhigo. 15 minutes bullish ku xirmay. Laakiin 30 minutes so ku xirmay. Laakiin xirmo laakiin bullish ku xirmo 30 minutes kala week no so yeel karo oo saan marsan karo. Something like this. Week so yeel karo. Hadduu 30 minutes so yeel way 1 hour ka. I'm to get a 4 hours, but that's the only this trade basically. But the SL could markas. But the only issue I absolutely Hawaii because level حتى ضمنه عادي this level. So SL كان ماشي على previous high and قاعد يجا 1 hour previous high صار يعني. So عك عبسنا إنه وحسن عمر سنة. That's the only issue I absolutely وحسن عمر سنة. كريبتاتو. Because week is much again you never know. Week much again ملوك that's the thing. فأنا حاجة ممكن low and جينا because already week كهرم low وجبي. So let's see how it goes with us. لكن إنه حرب 30 minutes كان إنه هوستان كهرمو. هوستان. إنه resisting رسبور كانوا احترام على هوست كهرمو. Because تكرر كهرمو stuff. Okay كرر كهرمو. 5 minutes go ahead. Lakina without week. That's important also. Week malahan. SRK ma ku dhic doonaa. So let's see. Are we gonna be stopped out? Like halka issue jiro waxa waaye bullish ku xirmi iyo
weekna ma lahan weekas ma lahan ugu fiican yahay because he can drive. So because that image ku xirmi ku faraxsani, I might close my position if he comes to my entry, and then I might wait for the setup because I might wait for the 4-hour flip kisa because 4-hour weekis مش ايجي عملوا. So let's see guys. Flip into Plowna, into flip kisa drive here. حوالي almost 3 people. يصير كينو حاكي دمان. Almost less than 2 people. Same way. So let's see. It's gonna hit my stop loss. I'm just gonna take drop. Like meeshan horta waa filan meesha aada. Meesha waa filan meesha aada. So it's gonna hit my stop loss or it's gonna drive down. Let's see. Looking good. I'm down 122, I mean 124. وصعدة كرو صعدة. Stop loss حقيقة خسارة so 192. I'm risking 2% loss. So can this 1-hour flip? Can it flip? The good thing is korok hormari. Like 30 minutes ago, me korok hormari, and now I do low and GBO, and let's see how it goes. Marcus. What can you do? But now I'm sure at the end of the day we'll flip it now. So it's flipping, I think now. Okay, looking good. Guys, my stop loss was كنا حكينا high and حكينا, and then we see he has no right to come down. So can I have your card? So let's see. Who's on what? Huh? Who's on what? Okay, I'm gonna do break even, guys. Number 2. PE. We're closing Need a keyboard for number 1. fully over here. I close full, guys. So guys, today we're doing and waa ka baxay because balan leeyahay ago appointment leeyahay and dentist leeyahay, I mean so markan ayo bax laga rabaa. So today meesha dhahay break even ku imaaday and I closed fully meesha ku imaana xire. So guys, inshallah hadda waxa aragteen the whole day since yesterday maanta waxa sameeyay everything. So marka stop loss kale u dhaw arkaa saxay stop loss waxa ka dhan like around 10 people can do that. So that's why believe your setup. I mean, that's why you need to believe yourself. Reaction. بخل مرة عمري قلي. So that's why you need to trust your stop loss. So guys, ما يدري جينا.